جمعية قرمها كده حيسا هي الديدة دولست الريد كا مدة صدّن سنة يجا يجا عن تود كجرتي مركا جمعية قرمها كده حيسا وحي سميتي بروجكت اللي يرا إكيا بروجكت في الصوماليا وهو الصوماليا maamul keeda la wareega iyagoo rajaynaya inay dawladda Soomaaliya si dhaxso ah ku soo noqon doonto markii aan muddo dheer miirbeelkii ku jirnay jimciyadda qurumaha ka dhaxaysa waxay bedeshay projectigi mandate-kiisii iyo magaciisii waxaa loo bixiyay Civil Aviation Caretaker Authority for Somalia dunida oo nagu wareertay awgeed ayaa haddana mar saddexaad waxaa la bedelay magacii hay-addii maamuleysay hawada Soomaaliya oo loo bedelay Civil Aviation and Flight Information Services for Somalia marka iyadoo socota ayaa dunidii mar labaad waxaa la yiri project noocaan adduunka kama dhicin jimciyadda qurumaha ka dhaxaysana hawo wadan uu leeyahay oo xor ah gacanta kuma sii hayn karto adduunka waxaa la isugu yeeray shir ka dhacay magaalada Mumbai ee wadanka Hindiya 19 bishii January 20 beri ka hor intii aan la dooran madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo shirkaas anu goobjoogan ka ahaa laba option ayaa miiska la soo saaray in completely hawada Soomaaliya la xiro lana saaro wax loo yaqaan contingency plan oo ah laba diyuuradood oo hawada Soomaaliya maraysa inaanay kulminba adeegeedana downgrade lagu sameeyo oo hoos loo dhigo taasoo keentay in dhammaan diyuuradaha hawada Soomaaliya maraa ay ka wareegtaan iyagoo safety-gooda u baqaya option-ka labaad wuxuu ahaa in hawada Soomaaliya loo qaybiyo wadamada dariska ah jimciyadda qurumaha ka dhaxaysana waxay cadaysay in aanay adeega noocaana sii wadi karin shirkii annagoo ka soo laabanay waxaan u imaanay madaxweyne oo la doortay ra'iisul wasaare oo la magacaabay golihii wasiirada la dhisay wasiirka tiimkii ugu horeeyay oo la kulmaan kamid ahaa dokumentiga ayaan tusinay wasiirkuna wuxuu loo geeyay ra'iisul wasaaraha madaxweynaha federaalka la kulanay go'aankiina wuxuu noqday inuu bilowdo safarka hawsha amaanta u fadhino oo lala soo wareegay shaqaalihii la soo celiyay lacagtii la soo celiyay maanta upgrade lagu sameeyo insha Allah taala soon aan bilaabayno in diyuurad aan register garayno 30 sano kadib laysan aan bixino garoomada Soomaaliya aan ka saarno heerka ah in ay lumiyeen garoomada caalamiga